السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaa inooga bilaabmaya dhacdadii saddexaad ee tennisyada, halkaas oo aynu ku gelayno future tennis oo ah tenniska ka hadla waxa dhici doona ee mustaqbalka. simple future, markaa simple future muxuu yahay aynu bal kusii soconno. What is the simple future tense and what's used for? What is the simple future tense? Waa maxay future tense and what's used for? Maxaana loo isticmaalaa? Simple future tense is used for an action which will happen in the future. Simple future tense is used for waxaa loo isticmaalaa an action ficil which will happen in the future, kaas oo dhici doona mustaqbalka. Okay, sida halkan inooga muuqataa waxa uu ka hadlayaa wax mustaqbal dhici doona. Waxaan samayn doonaa waxaan qaban doonaa marka waxaanu si wanaagsan insha Allah ugu fahmi doonaa tusaalayaashiisa. Affirmative form, subject plus will shall plus verb plus object. Halkan markaa muxuu ina yidhi I will visit my relatives. I will visit waxaan booqanayaa my relatives, qabiiladayda ayaan booqan doonaa. Tusaale xiga, you will cook the lunch. You will cook waxaad karin doontaa the lunch, qadadaad karin doontaa. Tusaale waa inan lala hadlayo oo kale oo u xirsaaran marka qadada, markaa la leeyahay qadada ayaad karin doontaa. aynu kusii soconno tusaale xiga, we shall begin our work next week. We shall begin waanu bilaabi doonaa our work shaqadayada next week, weeka soo socda. Kulli halkan shall baad ku aragtaan. shall waxaa adeegsada ama loo isticmaalaa we iyo I. halkaasoo kale imika waad gashan kartaa, waad oran kartaa I shall visit my relatives, waad oran kartaa. shall markaa will unbala micnaa ama xeer tahay, maadaama ay saa tahay dadka qaar ba sibay yidhaahdaan, qaar ba hadduu doono will u adeegsanaya intuu I ka dhigo subjectigii, qaar baa shall adeegsanaya. wax farqiyo saa ballaaran uma dhexeeyo. aynu kusii soconno tusaalaha xiga, they will fly tomorrow. They iyagu will fly waxay duuli doonaan tomorrow, baray duuli doonaan. He will marry her next month. He will marry her iyada waxa uu guursan doonaa next month, bisha xigta ayuu guursan doonaa. marka maxay noqonaysaa waxa uu guursan doonaa bisha soo socota. aynu kusii soconno tusaalaha xiga, she will take the barrel. She will take waxay qaadan doontaa ama qaadi doontaa the barrel, foostada iyadaa qaadi doonta. It will make a difference. It will make a difference waxay samayn doontaa farqi, kala duwanaanshiya ayay samayn doontaa. marka halkan it ayaa taala, waxa laga hadlaya marka waa arrin. it wixii aan caqliga lahayn bay ahayd amaba shay marka laga hadlayo, marka arrin ama xaalad un bay ka hadlayaan oo marka uu leeyahay it will make a difference, arrintaas farqi bay samayn doontaa. aynu u gallo qaabkii ahaa qaabka negative-ka diidmada ahaa, subject plus will plus shall plus not plus verb plus object. qaacidadiisii waa inta. okay, halkan haddaba muxuu ina leeyahay I will not visit my relatives. maxaa markaa haddaba meeshii kusoo biiray? waa kan wuxuu yidhi maan booqan anigu qabiiladayadii ama familigaygii ama qaraabadaydii maan booqan. sax, not keliya kusoo biirtay intii hore soo ma ahayn I will visit my relatives. halkan muxuu ina leeyahay I will not visit my relatives. markaa not keliya ayaa dhammaan kusoo biirtay, just intaasunba wax isbedela meesha yimi. marka waa inaad la socoto si uu kugu fududaado. tenniskuna waxa laga sameeyaa tusaalayaal badan sidaan hore idinku soo sheegay. aynu kusii soconno tusaalaha xiga. wuxuu ina leeyahay you will not cook the lunch. You will not cook ma karin doontid the lunch, qadada. qofkii baa lala hadlay, markii hore la lahaa adiga ayaa qadada karin doona, imikana maxaa la leeyahay ma karin doontid qadada. tusaalaha xiga aynu kusii soconno.
We shall not begin our work next week. We shall not begin ma bilaabi doono our work shaqadayada next week. Weeka soo socda anagu shaqada ma bilaabi doono. They will not fly tomorrow. Berri ma duuli doonaan. He will not marry her next month. Bisha soo socota ma guursan doono iyada. She will not take the bottle. Foostada ma qaadi doonto. It will not make a difference. It will not make ma samayn doonto arrintanu a difference wax farqiya ama kala duwanaanshiya. Aynu gallo qaabkii interrogative-ka ahaa amaba qaab su'aaleedka. Okay, qaab su'aaleedkii waa sida tan. Will, shall plus subject plus verb plus subject. Qaacidadiisi waa inta. Okay, maxaa wax isbedel hadaba ku yimi? Waxa isbedel ku yimi will sida inoo muuqata marka aynu ka tixraacno qaabkii ahaa qaabka affirmative-ka ee caadiga ah. Waxa ay ahayd I will visit my relatives. Waxaan booqan doonaa qabiiladayada. Hadda maxaa meesha yimi will oo la soo horreysiiyo kaliya. Will I visit my relatives? Qabiiladayada miyaan booqan doonaa? Tusaale xiga. Will you cook the lunch? Qadada miyaad karin doontaa? oo qofkii su'aal ahaan arrintii u haysatay imika leeyahay qadada ma adaa karin doona. Marka halkan isbedelaad ku samaynaysaa aad baan idinku buuriyaa arrintaa. Halkan maxaad adigu bedel. Will you take will you take the phone oo kale miyaad qaadanaysaa phone-kaaga ama teleefankaaga? Adigu isbedel loon ku samee. Shall iyo willna waad soo horreysiinaysaa oo kaliya hadba intii ku habboon. Shall we begin our work next week? Shall we begin miyaan bilaabi doonaa our work shaqadayada next week weeka soo socda? Will they fly tomorrow? Berri miyay duuli doonaan? Will he marry her next month? Miyuu iyada guursan doonaa bisha soo socota? Will she take the bottle? Miyay foostada qaadi doontaa? Will it make a difference? Arrintanu miyay wax farqiya oo kala duwanaanshiya samayn doontaa? Aynu u gallo qaabkii ahaa short exam-ka amaba su'aalo laydin diri jiray si aad uga soo jawaab celisaan. Okay, halkan markaa maxaa inoo soo baxay short exam. Change into another form. U bedel qaab kale. Okay, halkan muxuu ina yidhi markaa? Halkan wuxuu ina yidhi you will get your result on Tuesday. You will get your result on Tuesday. Waxaad heli doontaa natiijadaada Salaasada. Change into negative. U bedel qaab diidmo ah. Will the refugees return to their homeland? Will the refugees miyay dadka soo barakacay return to their homeland? Guryahoodii miyay ku noqon doonaan dadka soo barakacay? Change into affirmative. U bedel qaab caadiya. The students will not go to school by car. The students ardaydu will not go to school. Schoolka ma aadayaan by car oo kuma aadayaan gaari. Marka ardaydu schoolka kuma aadi doonaan gaari weeye. Halkaa markaa jawaabtu waxay noqonaysaa unda way u lugayno. Okay, change into interrogative. U bedel qaab su'aaleed. halkaa ayuu cashirku inoogu joogi doonaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.